sida caadada ah mar walba waxaan waqti siinaa lacagaha DXY-da. DXY-dana waa midda mar walba annaga isku dayno fursadaha kale inaan ku qiimeyn xaaladeeda. Fursadaha ayaga direct u saamaysan waa Euro USD, GBP USD, wax gold ah iyo crypto iyo waxyaabahaas oo kale ma trade gareyno. Mana rabo inaan trade gareeyo sababtoo ah inta lacag oo meeshan igu jirto daan fursad walba mideeda sida ugu qurux badan aan ka heli karo, so uma baahni inaan hunguri kala sii ciirsado anoo og fursadaheeda meeshii ku qurux badan inay halkan tahay. And that's the marka waxaa la yidhahdaa waa professionalism. Qofku waa inuu professional ahaado, waa qayb weyn ka mid ah waxyaabaha uu ku guuleysto. taas ayaa muhiim ah. Okay, isbuucan taarikhda November kulley 2026 waxaa naga xigto wax insha Allah waqti yar ah, bil iyo 20 beri. Waad dareemi kartaa waqtiga soo isku guraayo. Shalay haddaa ahayd sanad 2025 uu ku bilowday waxbaa qaban ahaan lahayd, hadda waa 2026. hadduu ilaahay cimri caafimaad aan ku joogno na wada siiyo waqtiga haddii xaaladihiisa makula tashanayo. Okay, maanta iyo shalay iyo daraad intaas soo joogtay waqtiga waa kii socdo un. Okay, so waxaan isku dayaynaa marka inaan isla fahanno anoo ku bilaabayo lacagta DXY-da ayadoo ka xog qaadanayno fikir ahaan meeshay aan ku analyze gareyn karno. Horta daykii levelka waan ka hadalnay meesha hadda rejection laga soo sameynayo waxaa moodaa inuu yahay low high-gaasi. Okay, then in la jibiyo oo toos loo jibiyo full body candle waa lagu guuldareystay. waxaa moodaa in rejection laga soo sameynayo. So rejectionkan selka ilaa xag u imaan karaa, that's the questionka. Ani waxaan isleeyahay ilaa key levelkan kale wuu soo taaban karaa haddiiba uu isku dayo inuu hoos usoo daato fikir ahaan iyo filashadayna. So 4-hour time frame hadda u degano 4-hour kanu in badan waan sheegay, waxaan dhahaa awood ugu badan asagaa leh markii laga soo tago 1 hour. 1 hour is just waa supply demand iyo fursadaha un baan ku dhisnaa mahane, laakiin 4-hourka xaaladihiisa iyo jihadiisa inaad ka wareysid aaday muhiim u tahay. Tiran ahaan structurekii ugu dambeeyay la jibiyey kaasuu ahaa, then halka wax high ah muusan ku sameynin, halkaasuu ku sameeyey high, then kana low noo noqday. So 4-hourkii ugu dambeeyey high lowgiisa waxaa moodaa inuu ka ahaa asagana la soo jibiyey 4-hour high lowga in la soo jibiyey ayaa ii muuqata. Haddii kaa la jibiyo filashada macnaheeda uu isbedel dhaco oo hoos loo new ah helno, waxaa filitid waxaa waaya marka in trendigaaga awoodiisa ay tahay sell. Okay, already 4-hourkaa ka garan kartaa in fursadda awoodda DXY-da fursadeed ay sell yihiin. Trendigan ayaan sheegayo inuu continuation sii wadi doono ilaa halka haddiiba sida hadda xaalad aan ku qiimeyn. I don't know beri wixii noqon beri isbedelka imaan doono, xaaladaha beri waan gaaraynaa, laakiin maanta haddaan ka wada hadalno dollarka fursadiisa waa sell. Okay, 1 hour hadda usii gudbo si la mid ah waxay la qabtaa 4-hour. Okay, so 4-hourkaaga iyo 1-hourkaaga hadday isku jiha noqdaan will be good. Okay, 4-hourka halkaasuu ka sameeyey, marka 1 hour waxaa moodaa in si toos ah horey loo soo sameeyey ee meesha ayba tahay low. Meesha 4-hourka iyo meesha change ay ka ahayd keliya 1-hourka low ay ka haysataa. Then waxaa noo xigay structure shift kaloo hoostaas ka sii dhacay, then another 1 hour low. Okay, mar haddii uu DXY-da low tahay, filashadeena lacagaha Euro iyo GBP USD waxaan ka filanaa waa fursado buy ah. So meesha hadda la joogo oo DXY-da aan isleeyahay waa horta daadashada imbalance ay samaysay in aan isleeyahay waa laga laaban doonaa. Everything waxaa keliya inaan rajeynaa haddii wax isbedelaan let me know to the comments qaybtan igu soo qor haddii in case ay wax isbedelaan mase ay cilad yar imaado waan la soconaa daqiiqad then idinkana focuskiina iyo sii cashirada. Okay, so kaasi waa low. Then kani wuxuu matalayaa laabashadan buyga in uu nasiiyo ay tahay kadib targetka nooga soo sokeeyo in suuqa la geeyo ilaa halkaa macquul tahay waqti aan kasoo hadalnay. Haddii isbedel inuu imaado oo in suuqan la buygareeyana waxaan ka xisaabsanaynaa waa low high-ga u dambeeyo haddii la qaado wixii markaa kasoo kordho beri iyo beri dambe waa gooni. Laakiin as long as ay suuq uu taagan yahay low high-ga aan la jibin, suuqana supply-gan uu taagan yahay, filashadaada mar walbo awooddaada ugu badan sell ay ahaanaysaa. Taasi waan isku raacnay. Okay, allahu mustacaan. Okay, mar haddii xaalad ay saas tahay, haddaba su-aasha xigta waxay noqonaysaa lacagahan
aan rabno inaan fursad buy ka qaadano sida euro USD oo kale iyo GBUSD oo kale ayadana order flowga mas trendiga wax kaliya oo qiimeynayna waxay noqon doontaa isbedelkii u dambeeyay suuqa halkaasaa laga soo sameeyey then kana wuxuu noo abuuray high okay kaas hadduu high yahay waxaa xigsaday jimcihii trade badan trade halkaa laga qaatay way jiraan jimcihii okay so hadda waa isniin kanna waa trend demand qurux badan uu abuuray so kanna waxaa xigsaday marka high kale okay waxa hadda ii muuqdo oo soo laabtayna waa correction so DXY-da la sell aan u analyze garanay so lacagta iyada marka awoodeeda waxaa is leeyahay filashada hadda aan isbuucan ka qaadan karno in ay ahaan karto buy okay ilaa zonka nooga soo sokeeyo haddii la tago sababtoo kii halka ahaa waa la qaaday so haddii kaa lasii dhaafana ilaa halkan okay meelaha nooga soo sokeeyo aan ka filin karno halkan so momentumka hadda la joogo marka correctionka naftirkiisa haddaan 5 minutes oo la degano wax entry ah ma keeli karna that's the question okay ani ahaan wax equal ah uu isiiyey linkan soo daadanaya ma jirto laakiin wuxuu sameeyey shifta oo halkaa ka sameeyey isla shiftigaa suuq uu sameeyey wax aragti ah oo liquidity anagoon haysanin marka hadda waxaa ii muuqato in kan ay equal low noo tahay liquidity okay kana hadda igu soo dhow waas leeyahay isaga la manipulate garayn doonaa asaga in la manipulate garayo ma xumeen laakiin haddana isla suuqiyaa shift sameeyey soo laabadkii halkaa ka soo socday haddana marka la shift sameeyey okay so markuu shift sameeyey wax equal ah kala aan hadda ii muuqdo aan arkaayo kana igu soo dhow okay kaasa equal ah so masdhihi karnaa xaalad ahaan haddii halkaa lagu soo laabto okay kani waa haddii halkaa lagu soo laabto fursaddeena buy waa qaadan karnaa haddii halkaa lagu soo laabto fursad buy ah waan qaadan karnaa ilaa one more high targetkeena inuu noo noqdo waa filaa so laakiin waxyaabaha aan red flag rabo inay indhaha ku heysiin aan rabin inaad ila socotiin waxaa waaye equalkan naftirkiisa ma la deyn doona oo sidaa maa lagu deynayaa aniga waxaan qabaa haddii xataa la deeyo waa macquul laakiin haddii waxaan kasii jeclaan lahaa in week xataa lagu tuuro si meesha uga baxdo dan suuqa bartaa ka shidaal qaato ilaa halka fikir noocaasa mase suuqa dhanba haddii halkaa laga celin waayo then uu toos usoo jibiyo uu halkaa ka buy garaysan okay then ilaa halkaas aniga euro USD labadaas fikiraan qabaa haddii halkan ay ka laabanayso haddii ay week kusoo tuurto oo sell yar ah then buygaa la aado mase in si toosa scenario 1kii la imaado then equalkaa dhan meesha laga leexiyo shift yar inaan halkaa ka helno aan fursaddaa buy ku qaadanayn so taasi waa euro USD marka fikir ahaan iyo hadal ahaan waxaan u dhigaynaa si ay sheekadu u qurux badnaato laba optionka koowaad inuu suuqa soo daato uu zoonkan imaado markuu halkaa inuu ka laabto dabcana oo liquiditygaas qaado then haddii shift kala gudahan arkeen 1 minute ah then fursaddeena buyga sidaa ku qaadan taasi waa fikirka koowaad fikirka labaad in scenario 1 toos loo imaado halkaas okay then 1 minute oo shift halkaa arkeen la gudaha then kadib ilaa buyga so labadaasi option aan haystaa haddii aan euro USD rabo inaan fursad qaato si lamid ahna waxaa iidan soo dhigaya qaybtiina chartka texaya sawirka meesha waa ka qaadan kartiin okay maadaama dhalinyarta lifeka joogtay dhalinyarta maqan ee marwalba isku ahaan karin kuwa isku fikir ah sababtoo dadka jooga way ka fikir fiican yihiin mase ka xog fiican yihiin qof video daawanaya mase setup noocaas arkaya sababtoo qofka trendka noocan oo haysta aragti noocan haysta oo ka trendka uu ka guulaysan karaa ninka kale oo keliya sawirka arkaya so that's a good setup bal maanta aan ka warhayno saacadaha nagu soo aadan haddii wax isbedel ay noo imaadaan okay so USD warkeeda waa kaas GBPUSD si lamid ah haddii aan 1 hour ku laabano ayadan sidoo kale si lamid ah hadda ka hor waa tii aan sheegnay in shiftiga la sameynayo way noo muuqatay haddii aan waxa dhankii la gareeyo si qurux badan kani ayaa waxa uu noo noqonayaa demand zone sababtoo ah dhaqaaqa isbedelka sameeyey oo trendiga high-gan abuuray high-giis ugu horeeyey wuxuu ka sameeyey halkan okay sida euro USD ay laba high u haysato GBUSD ma hayno so euro GBUSD kale maxaa haynaa hal high kalena waxaan sugaynaa hadda
okay daqiiqada I think inaysan samayn I think way samaysay already waa greenkaas so laba high ahayna haddii kan uu high noqday then automatic demandkan waxaa ka qurux badan inaan ku xisaabtano inaan kan ku xisaabtano waayo kaasi IC ayuu watay in la tago way qurux badneed laakiin asagoo la tegina high la abuuray taasi marka waxay kutusaysaa inaad ka maalinto haddii marba IC-ga la tago the change of character meeshan imaanaya isbedelkaas ayuu suuqa samayn karaa marka si ay saas noogu dhicin waxa hadda arag inaan focus siino correctionka soo laabanaya iyo xaaladiisa so 5 minutes hadda u degano ani ahaan waxaan qabaa in euro USD bedelkeeda okay wax equal ahayne uu tradekan siyotkan u ahaa oo gudahaas ku jiro kasakow equal kala uma jeedi oo I think maybe kan uu noqon karaa asagana inkastoo aniga subax aan trade garaynin New York session subax sniin ma trade garayn that's my rule fursad walbo subax sniin baxdana waxaan ka xisaabsadaa inaysan bujirinba okay waa sideedaan ku daayaa so kaasi waa equal keena laakiin shiftigeena meesha ka dhacay waa kaas okay kaas hadduu shiftigeena ahaa so fursad bay halkaa ku jirtay qofkii qaatay maybe uu qaatay qofkaan qaadanna ani camal oo isniin subax trade garaynin waan cudur daarimayna waa ruulsigeena sidaas okay so fursad bay halkaa ku jirtay oo GBPUSD I think soddon bib suuqnimo haddaa heshay isniin kaa badan okay qofkii trade qaatay hadduu uu jiro let me know qof qaatay ma jira GBPUSD ani subax isniin ma trade garay laakiin dhalinyar subaxii trade garaysa fursadda arkay ma jirtaan haddii ay jirto bal let me know dhowr qof ani cabdiqaadir so rawaar maxamed qaatay badro keep going okay meesha ka sii hay laakiin aniga ma trade garay subax isniina 28 bips Hamza sahale isagan sidoo kale wuu ka faa'iidaystay amazing so anaga hadday fursaddeena wax isniin galab ka bilaawdo ilaa iyo galab jimca sidan oo kale ayaan fursadaheena u raadinaa wixii soo kordho waan waqti kale aan qaadan doona okay so 28 bib qofkii helay 10 bib waa lacag ugu sameyn 28 bib haddaa heshay waa amazing trade sababta high lagu dul sameeyey kaasi hadduu high yahay oo kan high ahaa labada 1 hour-ka and I believe so inaad tradeka haddii xataa hadda ay rajo kaaga jirto inaad sii haysid ilaa stowliska change of character laga soo samaynayo weli rajo hadday kaaga jirto ilaa zoomka kore in lasii tago waa macquul okay I don't know wixii kasoo kordhi doono laakiin right now hadda aan kula hadlaayo waa macquul in korka lasii aado laakiin waxaa moodaa volumeka inuu hadda rejection soo sameeyey soo laabasho then uu impulsive isku diyaarinaa inuu dhaqaaqo laakiin way suuqa kama hor dhacayno qofkii tradekaas qaatay soddonka bib helay amazing ilaa targetka 80ka bib haddii lasii geeyo beri oo aan arkaynaa wixii kasoo kordho taasi waa aragti ahaanta dadkii fursaddaa qaatay laakiin anaga weli GBPUSD fursad maanan siinin reer New York session haddaan nahay hadda kadib ayaan sugaynaa okay so yeah Allahu musta'an then lacagta waxaa noo saartay USD JPY horta hadda idin sheegay dhagirteeda haddaa xasuusatiin aan kala update qaadanay markii aan idinku keen dambeysay inay jirto dhalinyaro signal qaadato oo fursad walbo anaga qaadano u siino qaab signal maxaa sababay duruufo darteed in badan fikir signal inaa bixiyo aada u diidanaa laakiin ugu dambeyn waxaa moodaa tiimka qof walba inaad choicekiisa siinay okay tradekii ugu dambeeyey aan qaadanay oo qaab signal ahaan u qaadanay wuxuu ahaa I think USD JPY iyo Euroka maadaama khamiis aan bilownay in signal nooca member chartka siino live trade qofkii imaanaya live ka imaado dantaana ku farayso sababta dhalinyarta qaar waa dhalinyaro aad u mashquul cilmigii way hayaan fikirkii way hayaan aqoontii way hayaan laakiin waxay isku keeni waayeen shaqadoodii maalmaadka ahayd iyo suuqana inay isla hadhowleeyaan so qofkii wuxuu ku leeyahay aniga cilmiga waa hay laakiin I have to inaan tradekii on time aan ku qaadan karo fursaddeena inaan aniga iskhaldo maybe kama baqaayo laakiin wuxuu is leeyahay fursaddii anoo ogeyna iga tagtaa so discipline nooca joogteen
anoo hunguriga iyo nolosheyda kaloo ceersanayna forex kuma keeni karin kaasoo kale wuxuu ku leeyahay marka hafto inaa signal helo oo entry price-kii iyo stop loss-kii TP waxooda dhan iyo qoraa qofna sida idinkoo kale hadda intuu soo xaadiray cilmigii raadinaya si live fursadii nala qaata so saa xasuusatiin marka signaaladaasi waxay ahaayeen Eurocard iyo USD JPY dadkii marka traderkaas qaatay oo isniinta isku keen dambeysay ani idinka I think sorry khamiista isku keen dambeysay traderkan ilaa iyo 119 pip TP3 saakuna siiyey okay saaka aan ka qaadanay so asagana trade aad u qurux badan oo yahaa intiina badanna waan ku celcelinay waqti badan waa isla qaadanay haddii aad xasuusatiin dhalinyarta xataa kuwa joogaa jiro isniintii oo traderkan USD JPY marka aan la isgaranaynay waan kaga hadlaynay traderkan haddii uu scenario 2 soo dhaafo xasuusno aan idin idhi in scenario 1 uu traderka uu bixiyo ay ahayd equal-kiisana uu ka ahaa oo traderka 1 hour-ka kulli gabadha follow ay saxnaayeen then shift traderka uu noo sameeyna kan uu ahaa intii la socotay way la socdeen oo isniintii hore ahayd so talaadii arbaca iyo khamiis iska soo dawareynay ugu dambeyn fursadda traderka markii scenario 2 la soo jibiyey aniga waan ka rabno inay 5 minutes shift noo sameyso ay sameyn weysay ugu dambeyn subax jimcaha miya mise galab khamiis ay ahayd oo fursadda halkaa ka bixiyey intrigeena bartaas aan ka qaadanay suuqa entry price-keena targetkeena ilaa kaas u ahaa so targetkeena ugu dambeyn weekendaan ugu soo galay oo sabtiyacad ah saasay tahay dhalinyaro badan oo haysay oo qaadatay oo akawnadooda ku baasasaa jirto oo qaarkood facebook u dhaafeen qaarkoodna ay tradedii markaa fursad sida anagu hayno jimcadii iskaga baxay habeenkii oo 30 bib ka helay 35 bib ka helay iskaga baxay so qaarkoodna ilaa saaka markay hayeen intaa intriga u dhaqaaqay so marka fursadda waxaan ku keenay hadalka ah USD JPY maxaa nooga soo kordhay iyo qaab noocee ah aan fursad u qaadan karno waxba iskama bedelin aragtidii bayga ahayd oo aan ka dhawaajinay in marba haddii distribution feeskan laga soo baxay oo si toos ah demand zone-keena loo imaaday kana uu noo ahaa nasiinyada kana uu noo ahaa shifta then tradekii sidiisa aan ku qaadanay uu kan ahaa asagoon baan had waxaan ka raadinaynaa in one more time uu correction noo soo sameeyo laakiin ka hor waxaan aad u jeclaa inuu brief structure uu kor u sameeyo si aan ku helno high kala ka sareeya taasa aniga hadda aan jeclaan lahaa so haddii high helo maybe meesha hadda maray uu kasii durko uu high ii sameeyo dan soo laabashada kaloo correctionka ah fursad waa ka dhisi karnaa okay taasi waa fikir ahaanta USD JPY so laakiin hadda right now la joogo trade hore aan u qaadanay unbaa live ah wax kaloo marka aan ka dhihi karo ma jirto haddii USD JPY aad ku jirtay oo dadkeena la qaatay oo guruubyada joogay oo hore u joogayna waxay kugu dhammaatay kulley dad badan oo waagaas joogay way jireen waxay kugu dhammaatay I think inay ahayd positive okay laakiin hadda wax trade ahaan asbuucan aflishiis aan hayn doonno waa keli in one more time uu galabta high kalena siiyo si aan correctionkan fursad ugu dhisno beri iyo wixii ka dambeeya xaaladahaas laakiin hadda meelaa buy ka dhah iyo meelaa sell ka dhah ma haysto okay waxaa noo soo haray GBP card oo ayadan in badan aan ka hadalnay intiina badan aan ogahay aan aaminsanahay in tradekan halkaa markuu ka dhaqaaqayay intiina badan aad ka faa'iidaysateen ilaa boqolka iyo dhowrka bid so haddana waaba fursad kale isleeyahay waan ka heli karnaa oo IC candle la joogaa kanna wuxuu noo yahay correction so hadda 15 minutes hadda u degto ayadii Eurocard waa labada trade oo markaad inaa idin la wadaago xaalad ahaan haddii aadan qaadanna I think dhalinyaro badan qaadato way jirtaa laakiin aniga hadda baan dhalinyarta inaa signal ahaan u siiyo so idinkan haddaaba joogtiin calafkiina haddii idinku jiro isla qaadan okay so GBP card inkastoo meesha hadda ay marayso ay ka qurux badneed inaa halkaa ka qaadatid okay meesha inaa ka qaadatid ay aad ugu qurux badneed laakiin meesha hadda marayso xataa waa laga qaadan karaa okay so stop loss-kaaga you have to 3% mar iska garayn kartid sababtoo ah 50 means 25 bib waa iska garaynaa haddaad 3% iska garaynaysa waa 25 bib so 2% waa inaad iska garaysaa okay riskigaas micnaheed waxay tahay 2% of your account inaad iska garaysid si divided by 50 aan u dhacno khasaaradiisa haddii uu trade sell noqdo uusan wax badan kuu khasaarin laakiin haddii halkan aad ka qaadatay intrigaaga wax walbo lower node SMC entry model lagu qaadan karo kan ayaa shiftan oo ah
beddelkeeda aniga haddii aad halkaa ka qaadatay waan kugu dhiirigelinayaa inaad tradekan ilaa 100 pip aa haysid fursadda ilaa high-ga inaad haysatid waan kugu dhiirigelinayaa haddii aadan qaadanna weli meel entry aad ka qaadan kartid ma joogtaa beddelkeeda eurocard aan raadinayna haddii eurocard ayada eurocard ay noo roonaato eurocard aan qaadanayna laakiin qofkii GBP kan halkan ka qaatay please and please hayso tradeka qof qaata ma jira oo hoosta ka qaatay okay ninja ninka la yiraahdo USD JPY si fiican u jilciyay mashallah amazing and I like these people wallahi dhalinyarta aan aad ugu dhiirido inaan mar walba dartooda life soo galo waa dhalinyaro aad u dadaashaa jirto oo keliya gacan qabad u baahan okay so anna dhankeyga haddii live member chat aad ku jirtid mise group whatsapp live trade aad ku jirtid anna promisekay ugu badan insha allah waxaan siin doonaa trade walbo aan qaato inaad qaadatid keliya inaad iga ilaalisid hungurweyne risk la'aan inaad tradeka sigiis ku heysatid okay muha wuxuu dhahay shiftigaan ka qaatay GBP card allahumma musta'aan GBP card nin qof halkaa ka qaatay ma jira taa hataa ka qaadatay ilaa 100 bibinaysa oo kuu dhiirigelinaya ha sii dayn haddaadan qaadanna oo aniga ay la mid tahay oo weli banaanka aad taagan tahay fursad kale waa noo raadinayaa laakiin meesha hadda ay marayso meel 2% laga risk garaya waaye anna mar walba inaad 3% risk garaya jeclahay okay GBP kan muha ascod wuxuu dhahay waxaan ka qaatay shiftiga ka qaatay so hadduu shiftiga qaatay micnaheedu waxay tahay markuu shift sameynayo qaatay which is entry qurux badan waana trade aan aaminsanahay insha allah quality trade inuu yahay okay wuxuu ku dhammaan doono we will see wuxuu ku dhamaado laakiin waa quality trade haddaa heshid waxaa lagaaga baahan yahay inaad ku adkaysatid aadan cabsan okay quality tradeada ha ka cabsanina haay lacagta meesha idinka jirta ma idinka jirto inaa maalinta chat kor fadhiso laakiin quality trade haddaa heshid ku dhignaaw sidii koolida oo kale so hadda laba trade aan mention garaynay waa euro USD sidaa iyo allah musta'aan GBP card aydan hadda doorkan entry life bixisay laakiin aan waxaan rabaa eurocard is leeyahay inay u yardhawada ya eurocard rajo weyn igaga jirtay idan haddaa xasuusatiin dhowr trade ka qaadanaa jirto oo maasha allah ahayd isbuucii hore ani ahaa dhinkii aad igu jiiftay laakiin dhib ma lahan haddaan usoo kaba gashtaan dhihi karaa loohaagaa lasoo testgareeyey hayhaagaa waa halkaas waxaana dhan waa correction okay so 5 minutes haddaa u degato tradeka aan rabaa kan inaan hatta right now aan sugaay oo daqiiqada igu soo aadana inaan qaadano kaasoo ahaa equalkeena then kan shiftigeena sida GBP kan u samaysay aydan la samaysay okay kaasi waa shiftigeena kaas hadduu shifti noo yahay ay halkaas arag inaad ka qaado laakiin one more time aan sugayaa waa inay halmar full body candle meesha ku jirto okay sababta u sugayana wax kale maaha only waa hal confirmation oo ah in meeshan ay break of structure samaysay 5 minutes okay taasaa marka ugu shiftigan kalsooni dari igu riday full body candle kaasna ma haynin so hadda u baahanaya marka in shiftigaas ay mar labaad ii samayso that's why marka ayada xoogaho way ka bips yar tahay wayna ka yar nugushahay meesha hadda taagan tahay waana meel aan haddii ay body hore ka samayso aan qaadan karno which 35 taasina waa content so tanaa noogu dhow okay tanaa 25 no ah tanaa noogu dhow tanaan asleeyahay ayada waa quality kalo trader saa in badan ay sheegay lacagaha eurocard iyo GBP kaarta similarly sida GBP USD iyo euro USD isku shabahan ay badna isku shabahan horta barashada taasna inaad ka warhaysin waa jecla so kanalka greenka furmay oo hadda socda oo aaminsana inuu midka shift noo sameyn lahaa inuu yahay si aan targetka 85 bib aan isbuucan u qaadano so adigoo marka live-ka noocan joogo sidan aan wax taxliilinayno weli ay leedahay ustaado dhowr ku jira khasaare badan ku jira suuq waa fahmi laasanahay oo leesa ay haysto ani kulley qaabka kugu caawiyo ma garanayo so waxaan ku dhihi lahaa I know waa la soo maraa waddadaasi laakiin waxaan jeclahay inaad ka gudubno si wada jir ah okay trade la khasaaro iyo trade la faa'iido labadaba muhiim ku ma adig waxaa mar walba muhiim ku ah joogtayntaada iyo disciplinekaaga mar walba muhiim ku ah okay so shiftigaas u baahannahay intaan sheekaysanayn hadday noo samayso waan qaadanayna okay haddaysan samaynin banaanka ka taagnaan sababtoo ah waxaan rabaa beddelkeeda GBP kan xataa haddii one more time ay gudahan ii soo geli karto in dhalinyarta hadda life ila joogta in hal mar wada qaadano laakiin qofkii halkan ka qaatay amazing shaqo fiican aa qabatay bartaas ka hel
Okay, stop loss kaagana waa I think that's not too much. Laati shanta ka dhig. Sawirka haro aa soo diray stop losskiisa ha ku qiimeynin. Stop loss kaaga always risk 3% or 25 pip ah. Okay, halkan stop losska ku ahaa. Haddii halka aad ka qaadatay, laakiin haddaa halka ka qaadan, please Eurocard ila sug. Ani taladeeda taas aan qabo. Eurocard ila sug, dadkan GBP card qaad ha baxaan. Okay, so waxaa kuu soo haray card JPY. Card JPY ayadana trade kale aad u qurux badan ayuu ahaa. Haddaa xasuusatiin fikir badan in badan ka hadlaa jiray oo maalinka ku saameysnaa nimiyow lacagtan hadday zoonkan soo taabato waxaa moodaa in anytime la wareejin karo shiftiga la samayn karo shiftigan haddii salka loo soo daatana halkaa bay ka qaadan karo I think sidan u analyze garanay USD GBP last week ayadana si la mid ah u analyze garanay khamiis ahayd xataa I think khamiistas xataa liveka public u ahaa okay si la mid ah hadduu kan shifta noqdo soo laabashadan uu trade ka soo sameynaya waxaa idin dhawaa correction soo bartaas buy waa ka qaadan karnaa laakiin bedelkeeda USD JPY ayaan fursad siinaynaa waa tii aydan dhahay oo ayadan iska daynaayeen so same way ayadan waxaa moodaa un inay haayahaga siisan qaadi doonto falashada isbuucan wixii kaloo kasoo kordho waa gooni beri ilan waa wada joognaa mugte laakiin maanta hadda xaaladda noocan ay ku sugan tahay aniga fikirkey waxaa aaminsanahay in card JPY ay one more time haayaha ay noo sameyn doonto taasi ayaan isleeyahay laakiin haddii xataa aydoon hayhaga samaynin ay soo daadato correctionkaas soo laabanaya inuu sel aan usoo raacin ku dadaala keliya ah correction aan u xisaabno kadib sidii hayhaga lagu samayn lahaa aan waqtigeeda siino laakiin selkan hadduu soo daato u kaadi ilaa shuruudahaada aa keelaysid xanaa selaa soo daatay waa qaadana waxlaa ma jiraan dhalinyarta entry modelka waqti siiyeen way fahansiin waxaan ka hadlaya dhalinyarta laakiin systemka entry model siduu shaqeey aqaanin please ku dadaala inaad taxadir badan muujisaan oo ah tradeka haska qaadan adoon ogeyn waxaa ku qaadatay iyo sababtii reasonka okay that's my disclaimer ku degdegina suuqan account in la furto lacag la sameeyo mise signal groupyo laga bixi in lacag laga sameeyo signal qofka qaadata xataa waa inuu garan karaa sababta ka dambeysa so signal aad qaadanaysa sababta ka dambeyso entry wuxuu ku baxa aadan garanaynin inaad qaadatid dhibaato badan aa kaaga iman karto so make sure ilmay waqti USD card soo hortay USD card horta 1 hour-ka hayaloogiisi in badan waa ka hadalnay iyo trendiga qaabku yahay horta waa la jirin oo dhaflow haddaa xasuusatiin dhowr trade ka qaadanaa jirto hayalo okay hay kale hayalo kale bartaan ilaa had waxaa hay kuma jiraan waxaan dhan hal impulsive ahayn so hayalooga ugu dambeeyey kan u ahaa isagana waa la jibiyey so kaas haddii mar la jibiyey wixii halkan yaalo un waa loolo waxaan hadda raadin doona waa un supply area oo fursad sel kale un baan raadin karnaa fursadii buy waxaa moodaa inay naga soo yaraadeen so imbalance halkaasuu ku jiraa maybe in one more time barkaa lagu laabto correction caafimaad qaba u baahannahay correction caafimaadka qaba haddaan helno micnaheeda waxay tahay we are ready inaan anytime aan helno nidaam noocaas aan helno equalka iyo shiftiga then inaan soo qaadan karno laakiin anigoo shuruudaha noocaas helin waa sugeynaa xaaladihiis iyo siduu u kala baxo laakiin waxaa ka raadisid waa fursado seelo inaad bias lahaatid xataa waa qayb weyn ka mid ah inaad suuqa fahamsan tahay dadaan haysanaa jiro xataa suuqa structureka fahamsaneen the losers aan ogeynaa suuqan dadka khasaarey dadka faa'iida waa laba nidaam dad fahamsan suuqa oo nidaamku u shaqeeya yaqaana laakiin mindsetkii psychologigooda uu eber yahay iyo dad labadaba xataa structureka sida u shaqeey aqaanin kuwaas waa kuwa ugu daran laakiin aniga waxaan ognahay in mindsetkii psychologigana dhibaayo inuu xal leeyahay mase aqoontii hayno once aan aqoontii nidaamka suuq u shaqeyn hayno waxyaabaha yaryaroona dhibaayo lack of risk managementgan iyo waxyaabahan overtradingkan emotionkan go'aamadan khaldan iyo xal way leeyihiin adiga unbay kaaga baahan yihiin inaad go'aan gaartid oo naftaada la hadashid laakiin dadka aan structureka iyo suuqa sida intiri loo qaatay iyo fursadiisa iyo strategy haysan kaasaa marka u baahan inuu ka fikiro cilmiga okay so anna intaa ka hadli karo waan ka hadlay haddii wax su'aal ah jiraan waa ila wadaagi kartiin so wixii entry signal ahna inaan bixiyo oo member chat aan dhigo oo dhalinyarta entryga siiyona danta ii geysay danta wax weligaa danta kuu geysa maaragtay lifeka inaan sameeyo oo idinkan cilmi faa'iidiin qofkii rabo imaado
Ima welcome. Qofkii live-ka awood u haynin waqti u haynin oo lin aniga waa mashquulsanahay hadee bal ustaadow wixii lacag unba iyo darne hunguriga wax walba lacag ka weyne lacagta ay hela lena stop loss ka entry iyo TB-gaaga everything oo ku dhigaya okay so euro USD aan ku laabanayna waa inta sheekeynayo trade badan aan dhaafi karo that's why marka sheekada xataa u fiican tahay inaan marmar horta euro USD waxaan moodaa soo laabadkeeda weli waxbaan oo dhiman waa saa sheegay in dhikolka meesha yaalo usan dabin noo noqon aan ka war sugno lacagta intay xoogo soo bush garanayso okay adinkaana ku xisaabtan in hoosta la sii tegi karo kan ka lagu soo qaadan karo ka laga laaban karo taasina waa ka hadlo so GBUSD haddaan ka wada hadlo idan mar labaad entry hadda ay ka tagto kusoo laabatay okay qof dad qaatay oo baaga qaatay jiraan laakiin mar labaad ay soo laabatay meeshan oo kalena bay laga maqaadan karo once that bike qaatay ku dhaqaaqday mar labaad hadii lagu soo laabto il gooni u baahan tahay aniga ma jecli tirin entry ka tagay kusoo laabtay inaa qaato hadda ka hor waa ka hadlo sababtan waa garan kartaa trade-ka baaga qaatay at least waxaan reebay muhiimadiisa inuu ka yara qalay oo korka u yara soo haddii mar institutionka ay suuqa ku jiraan laakiin trade qaadatay oo TB ku siiyey kuu soo laabtay haddaa mar kale qaadatid isku badnaaw okay stop loss ku dhacaa mar walba ma dhahay laakiin isku badnaaw ma fiicna tradeada noocyadaas oo kale hadda meeshay joogtay GBUSD-na I believe wax liquidity haynay kanu saa xasuusatiin liquidity waa kaas shiftigan waa kaas then dhaqaaqa shiftiga sameeyey mar labaad shifta muusan samayn x uu noqday mujibin so haddii kaas la qaadi waayo micnaheedu waxay tahay kan in la qaaday u badan tahay that's why marka in gudaha la imaanaya u badan tahay so make sure in skillsiga nidaam noocaas experience au lahatin waa muhiim okay maxaa kaloo ku haray GBP card oo kale ayadana waatan hadda xoogo entry-gan ay noo soo samaysay waxaan raadinaya okay euro card ma sameeyno saa u malaynaya shiftiga way ku fashilantay inay shiftiga samayso so ayadoo shiftiga sameeyna meel aan u qaadanayna ma jirto so labada lacagood hadda noo soo dhow fursad aan ka qaadan karno waa GBP card oo aan inay noo soo yara laabanayso aan fikir ahaanteeda iyo qorshe ahaanteeda haddaan ku siiyo GBP card qofkii halkaan qaatay haysto laakiin anaga waxaan wada sugaynaa ilaa one more time hataa halka hadday noo imaan lahayd waan jeclaan lahayn laakiin ma u malaynayo inay meesha imaanayso inay meesha ka laaban doonto iyo la tahay okay so entry-ga oo stop loss-kaagana at least 25 ka badan ha siinin haddii ay soo jibiso firi haddii ay bartan soo jibiso oo meeshan in la imaado ay noqoto haddii wixii inta ku dhistay baa laga soo hoosmaray so sababa u haysa trade-kan ma jirto adiga ilaa waxaa lagugu socon karaa 100 ilaa account-kaa ka gubtid so that's marka iska ilaaliya please iska ilaaliya GBP-kan meesha hadda imaaday fursad buy waa ka qaadan karnaa qofkii hataa qaadan karo is good aniga hadda entry price waxaan dhihi lahaa 1.84589 qofkii qaadan kara qaato bas meesha joogto is a good entry sababtoo waxay soo samaysay discount badan laakiin bedelkeeda ani euro card aan jeclahay inay shift samayso waxaan sugaayo u fadhiyo waa haddii ay samayso so that's why aan rabo in aanoo confirm haysto wax walba ay cad yihiin mas-uuliyiin accountno badan aan trade ku qaadan aan dhisi karo laakiin anagoo 50-50 amase anigoo wixii confirmationka rabi helin in dad badan accountnadooda mas-uuliyaddooda ha qaado is very hard way adag tahay qof inaa adiga dartaada uu trade u qaato adiga careless la-aan darteed adiga ku qabsatay qof kale u khasaarisid waxyaaba aad u adag so haddii EU halkaas aan isla hayno EU halkaasaan haya ninka la yidhaahdo SHD halkaasaan ani xataa aaminsanahay sababtoo midkaas gudaha ku jiro waa saa sheegtay equal waaye so ma rabo inaan ka hor dhaco that's why EU-da haddiiba trade aan ka qaadanayo inay halkaa imaato okay kaas haddiiba aan trade ka qaadanayo haddii kale meeshan waa dabin yaroo laisku gaadayo haddii marka euro USD ay fursadaas sel noocaas ay soo daadiso ay soo daadin weyso ay meeshaan imaan weyso haddii bedelkeeda euro card isleeyahayo trade waa ka heli kartiin waayo ayada ka rabnaago ayada waaba u gelbi karnaago sidoo kale GBP card fursad ka haynaa waayo aan euro iskugu wareerinayn haddii waxaan rabnay inoo sameyn weyso so the market we have to inuu ruusigeena na siiyo haddii ruusigeena na siiyo kama baqeena haddii ruusigeena uusan na siinin anagaa la raba inaan cabsano suuqa laakiin marka aad ruusigaaga iyo shuruucdaada haysatid suuqaa la rabaa inuu
adiga aad maxaa lahaa aad kala qaadatid laakiin marka adiga kursigaaga haysaninna adiga isqari dhuumo meesha il adeeg iyo madax adeeg kala soo taagnaan inaad lacag samaysid so mana noqonayso as long as adiga aad isku leedahay trader maanta qaban karaa lacagaa samayn karaa taasi just fikirkaaga way laakiin suuqa waxaa jecesha kuma isticmaalo so that's my aragtidaydu so qof kale su-aal baa ma jira aan signalo sidii wadaynaa there's no way aan signal iyo nidaamka dadka la siinayana dee signal qof oo aniga aan wax soo barin maaha all of them waa dad aan wax baray so aan waa ku kalsoonahay maadaama qofka aniga aan wax baray cilmigii heeyo in haddii signal la siiyo uu meel ka soo saari karo laakiin qof signal la siinayo oo meelka laga aruurinayo dhalinyaro oo joogto la leeyahay signalka qaata aqoontiis aadan aqoonin backgroundis aadan aqoonin forest wuxuu cilmi u leeyahay aadan aqoonin xaalad ahaan iyo nool ahaan wuxuu ku jira aadan ogeen mindsetkiis unbaa kusii khaldamaya hadduu signal qaata okay so dadka lifeka imaanaya sidaan kole waqti u qaadanayana and I believe inaa idinkan sidoo kale aan cilmi iyo wixii aad dantaa kala lahayn aan kala faa'iidayna sooma so qof walba choicekiis lifeka haddaa imaadid qofa dhalinyaro qaar xataa kule signalkan waan qaadanaya ya youtube-ka xooga saar ya recordkan youtube-ka u samaynayo hadda lifekan oo kale uu idin duwan yahay maybe caawa masberiyaan soo dhigaya inaan hadda soo dhigaa jeclahay sababto hadda haddaa dhigo life market wa laakiin qofkii beri lifekan daawado xaaladiis waxay noqonaysaa marka qof suuqii already waxaan sharxnay lagu kala baxay daawanaya sooma so right now soo gelina insha allah youtube-ku dhalinyarta maqan ha sii daawadaan idinkana haddaa ku ceshan kartiin ku ceshta and I believe siduu cali sheegayba youtube-ka waxaan siinaynaa mar walba wixii anaga halka aan ku sheegnaa geynaynaa si ay dhalinyaro badan ay ugu noqoto si life trade ay ugu noqoto so and wax kale aan ku darsada ma hayan qof su-aal igu darsanayo mis fikir igu darsanayo hadduu jiro soo dhawow laakiin waxaan wada sugoono waa eurocard waxaan u sheekeynaya aan u qaracmayo idinka idin madadaalinaya laakiin waxaan aaminsanaya eurocard inaan isbuucan aan wax fiican ka heli karno I believe waa trade quality leh GBP kaara ciil iga hayaba haddaana intriga qaadanin si mar kale intri u qaato dee bartaas kusoo laabato waxaan suuqan ku joogno intiina badan ogaan haddee trade 100 bib 70 bib 80 bib 90 bib la raadinayo reer SMC la hayaan saa rajeynaya haddii ka badan la helayana aan aaminsanahayna waa I think way jirtaa laakiin isbuuci 5-6 trade min high quality la trade inaan qaadano sidan oo kale life aan iskugu imaano waan joogtaynayna there's no way gadaal uma laabanayno cashirkii fundamentalkii maad soo dhigtid ustaad no fundamental maran life class ka bixiyey haddaa xasuusatiin habeen dhan cawnaha oo go'ay dugistiis waa haya qaab aan soomaali ahaan iyo qurux badan u hayaa jirto qofkii firiga nala joogay boqolkii dhowr qofoo aan siinaynay lifekii hadda 15tii beri dad badan way ka faa'iidaysteen member chatka groupka ugu badan haween walba oo qaybta janalka soo dhigaya namiyow maxaa fundamental aan leenahay soo xaadira waad dareemi kartiin xaaladihiina so insha allah waan waqti waa soo siin doonaa isagana qof kale hadduu jiro waxay ugu darsanaya qayb setup istaad soo dhig qayb setup waxaan soo dhigaa ma lacagaha intaan soo dhigo already halkaasoo ka maaris dee GBP card aydan kugu daraa waa gooni GBP card aydan intriga maraa u soo socotaa so haddii intrigas ay noo imaado aan ku xisaabtameen so GBP card halkan aan soo dhigaya sooma okay halkan aan soo dhigaya so halkan ka soco halkan kala soco meel kale unbaahaysa halkan sababta waxaan u diidaya maxay tahay tradeyada markay live yihiin waan aniga idinku ka sheeg laakiin trade set la dhigan qofa caawas ka imaanaya u malaynaya tradeki inuu hadda yahay oo maadaama lacagtii raadinaya bayo galaya anaa waa samayn jira haddaa cusub shirkada waxaa jira mogtahay brokerada waxay sameeyaan daily set mase daily waxay sameeyaan oo tradeyada fursadaha meesha aadi karaan saan ahaan aniga kanaa soo dhigay okay qofna kanuu soo dhigay qofkii lacagtuu fiirinaya priceka meeshuu maraya ma fiirinayo bayo qaadanaya so setupkii inta oo isku mid so halkan kala deg maadaama hadda life aad joogtid aa waqti soo gelisay halkan kala deg GB kan halkaas uu noo yaalaa so dhalinyarta member chatkan iyo general chat intaba waan idin soo dhigayaa
okay waan soo dhigay ka warhaya GV Carvatas waan soo dhigay Euro USD I believe inaan soo dhigay ayadana Euro USD ayadana waan soo dhigay in hoosta la imaan karo copy image okay waan soo dhigay okay yaa kale soo dhigaa Eurocard weli ma dhigi karo sababtoo ah shiftigan ka rabay kama helin USD card waxaan u baahanahay supply zone-ka in lagu laabto so ayadana ma soo dhowo waxaan ka dhiga ma laha GBP USD soo xigta ayadana xoogaa waxaan dhahay qofkii intaa ka qaatay uu ka faa'iiday so meesha hadda maraysana in la soo jebin doono u eg tahay gudahaas laga laaban karo so make sure ina ayadana xaaladaheeda saasay tahay uga warhaysid okay so marka wax kale hadda aan ku darsanayo ma jiraan okay thank you so much okay so GBP USD iyadana waa taas fikirkeyga waxaan ka qabo lacagaha so wixii beri haddii ay noqoto wax isbedelaan waa wada joognaa meeshaan ku kala tusaale qaadan doono so Cobitrade ustaad Cobitrade ka hadal shirkadaha fundingka qaabka ay u arkaan shirkadaha fundingka ma Cobitrade bixiyo okay munasar waa forward aydan soo dhaha Cobitrade ma bixiyaan mase waa shuruudahooda ku jirta in Cobitrade la sameyn karin dadka fundingka haysta shirkadaha like FundingNext oo kale ma in Cobi ay sameeyaan baa la diidayaa mase way ku soo dareen because ani Cobitrade meelay ku diidaan oo ruulsooda ku jiro ma arkin shuruudaha ayaan ka wada okay shuruudaha Cobitrade ma ku jiraa marka